warar laga helayo gobolka Mudug ayaa sheegaya in maamulka Puntland uu gacanta ku dhigay nin lagu magacaabo Xasan Ismaaciil Ibrahim Xasan Dheere kaasoo la sheegay inuu ahaa madaxii xabsiga Jeelowgaadeen ee magaalada Jigjiga. Xabsigan oo dadka lagu ciqaabi jiray muddadii uu xafiiska fadhiyay madaxweynaha xabsiga ku jiray ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar ayaa albaabada la iskugu dhuftay 22 Sebtembar ee sanadkii 2018. Sida wararka lagu helayo Xasan Dheere wuxuu si dhuumaaleysiya maalmihii dambe ku joogay magaalada Galdogob kaasoo markii dambe xogtiisa laga warhelay iyadoo xalay ciidamada ammaanka ay gacanta ku dhigeen. Dad arrintan ka warhaya ayaa ku waramaya in Puntland ay ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya oo ay xuduud wadaag yihiin ay ku wareejisay Xasan Ismaaciil Ibrahim Xasan Dheere wuxuuna ka mid yahay dad loo haysto tacdiid ka dhan ah aadanaha oo laga geystay gobolka. Sida qorshuhu yahay maanta ayaa la filayaa in ninkan dib loogu celiyo magaalada Jigjiga ee xarunta maamulka Soomaalida halkaas oo ah meeshii uu markii hore isaga ka soo cararay. Madaxweynaha ismaamulka Soomaalida ee Mustafa Maxamed Cumar Cagjar ayaa hore u sheegay inay meel kasta oo ay galaan ka soo saarayaan dadka dhibaatooyinka u geystay shacabka wuxuuna hore deegaano ka mid ah Somaliland ugu soo qabtay wasiiro iyagoo baxsad ahaa la qabtay.